كراهين سوي توجو هود عمود لايف كده ما بوان واي لايف كده ما بوان واي لايف كده ما بوان واي ما قرأت aniga ninkaygu waxba ay kaga dhacay wax bilaaya nagu kala dhacday il baa nagu kala dhacdan oran karaa il ayaa nagu kala dhacday sababtoo ah labadeedu waxaanu laba qof oo smartiya laba qof oo iska masaakiin aan war badnayn laba qof oo iska shaqaystaan ahayn laba qof oo isku qanacsan baan ahayn waxbaan helay toodi marka anigu waxaan oran karaa horta waa iska nasiib wax qadar allana u daa qadar ilaahay وعي وانا هاي صوعنا ولا عرقتين الله يفكر إداء بليس إداء ولا بالفضل هاي صوعنا أنت هاي عن كهذا برنامجك مرة واحد دوني ولا إن برنامجك ويقكلوا قاعي أنت وراك كده بجيني هاي وحوي ولا ليالو ورت يسود عيه إن أنا قارن تصير يقول هذا إنك يجي وحنا ناك عيل دراد اللي غفريناك بالهذا القصة ذا عيجا بالني قفات شعله ذا وانك شعلها هو أدون كان كوك شعلها oo walaalo sheedaanka iska naar oo walaalo macaan istijaadana kula waan ku furaya hadana kula waan ku andarada igu dhacday baan idin sheegay dhageysta macnaha anu ninkayga waxaan oran karaa wallahi is not happy alaanka waxaan aaminsanahay inaanu caadi ba ahayn ba ninkayga am not okay wallahi billahi oo tallahi inaanu is not okay hilaal is not okay hilaalki ma ahayn waxba aan samti happen ninkayga I believe that ninkayga in wax loo qabtay in la sirxay ay u dhawiyay ninkayga you know why micnaha qof hadana walaal quraanka isisaarna qof quraan isisaaraya mu ahayn because isaga uu tukada waa qof salaad sax laakiin he cannot believe in ma aaminsana waxa marka waxa weeyaan gurigiisiibu ka cararay gurigiisoo nolol iyo raaxo iyo sharaf taalo iskaga qaxay naagtiisu oo jecel buu ka cararay marka walaalayaal igu soo duceeyay horta hayga habaarina bil fadlan waxa weeyaan waa caruurteeda aabahood waa in ma garanaysaa ninkayga nolosha la soo wadaagay ma garanaysaa de aniga hadda already wuu ifuray oo ma garanaysaa waa in adeerkii haddana isagoo ifuray haddana caruurtiisii baan hayaa ma doonayo in dhibaato ku dhacdo ma doonayo inuu one day wax noqdo ma doonayo ilaahay waxaan ka baryaa inuu cimrigiisa dheereeyo ilaahay waxaan ka baryaa waan u ducaynay inuu ilaahay aamiinta walaal ii soo qoro bil fadlan ilaahay waxaan u baryaa inuu cimrigiisa dheereeyo oo aan caruurteeda ayaan waa aabahooda aan dhibaato ku dhicin ayaan ilaahay uga baryayaa sababtoo aniga waxa weeyaan dhibka uu ii geystay ama waxyaabaha aan magaranaysaa iga soo maray ma doonayo inaan magaranaysaa aan ku habaaro waxa weeye inaan waajibigu ah inaan u duceeyo ma fahmaysaa aan u duceeyo problemka raaligaada waa qalbi jilicsanay markaan hawlaha galaban mooshin noqonay oo hinku waalanaya marka waxa weeyaan walaalayaal aniga horta shalay galab waan xanaaqay aad baan u xanaaqsanaa waan murar dilaacay serious baan xalow dhan ma seexan ma garanaysaa de laba qof oo waxaanu nahay aniguna waxaan qof wax jecel isaguna waa qof iga sii jeeda marka qof wax jecel iyo qof ka sii jeeda mar walba waxa dhiban qofka wax jecel ayaa horta dhiban aniguna waxa weeyaan anigu jacaylka waan aqaanaa bugaagta jacaylkaana akhristaa qisadii waxaan akhristaa ma garanaysaa cilmi boondheere iyo hoodan waxaanay dadka jacaylka ka dambeeya heesaha waxaan ugu jecelahay heesaha jacaylka ah wallaahi beenidii ma sheegayo waxaan jecelahay oo anigu aan mar walba taageera dadka isjecel gaar ahaan waxaan aad u jecelahay dadka isqaba ee weliba istaageera xataa anigu waxaan ahay labada qof aan arko laba qof oo isjecel wallaahi oo billaahi oo tallahi waa isku qalqaaliya inay isguursadaan you know aniga jacaylka waxbaan ka aqaanaa because anaa jacaylka la nool aniga ayaa jacaylka la nool aniga ayaa hooyadiya aniga ayaa walaaltaaleego isoo wacayaan ma fahanti alla nimanku jalasaysana jalas baatiin wallaahi jalas inaadanaadhe nin walba naag bu haystaa jecel maadi nabadgelisaan aniga ninkaygoo aan jecelahay baa iga tegay ma fahatay mid kalena ma rabo mid kalena ma doonayo dee walaal idaaya bilfadlan dadkay soo wacayo walaalayaal idaaya ilaahayna ka baqo anigu ninkaygoo aan jecelahay xaaraan maa haddaan dhado ninkayga waan jecelay aniga jacayl baan ku guursaday jacaylkii aan ku guursaday baan u qabaa awlaad baan ugu dhalay
awlaad baan ugu hayaa waa noloshaydii waa naftaydii waan jecelahay cimrigayga inta ka hadhayna waan jeclaanayaa I can't believe inaan nin kala jeclaan doonoba maba jiraba because waxaan anigu aaminsanahay maasha Allah inaanan helaynba nin sagi oo kala anigu saasaan believe garaysanay ma fahantay marka walaalow haddaad soo sharaxantay jidka ku soo jirto halkaaga iska joog hadeerba waan kuu sheegaya anigu qofka soo sharaxanay jidka ku soo jira maamadan u soo sharaxanow halkaaga joog walaalo naagtan waa naag soo gubay jeceshahay oo ka cararaya daba ordaysa iyaduna ma fahanti marka waxa weeyaan aniga isagoo furay waan jecelahay forever noloshayda inta ka hadhayna waan jeclaanayaa because Xamse iyo Mustafa iyo Nimca aabahooda weeyaan adduunka wax ubad ka qaalisana maasha Allah ma jiraan ilaahay baa iga siiyey anigoo keligay buu i guursaday anigoo beela buu iga tagay meel aan ku nacana ma joogo ma fahanti meel aan ku nacona ma joogo ma garanaysaa aniga haddii calafkaygu dhammaadayna dee waan jecelahay still waan jecelahay ma fahanti baroortan iyo qayladan iyo ma garanaysaa buuqii iyo ma garanaysaa qayladiina waxaan gelinayaa asagan ka raali gelinayaa ilmaadeeradii baan ka raali gelinayaa walaaladii baan ka raali gelinayaa waalidkiisaan ka raali gelinayaa dumaashiyada oo dhan baan raali gelinayaa wixii sadohayaa oo dhan baan raali gelinayaa dadkaygaan raali gelin maadeeradii baan raali gelinayaa ma garanaysaa qofkii maanta igu soo caayi doono odhan doono naagtan waalatay ninka u waalatayna walaalayaal anigu waan jecelahay my love my husband igu soo duceeya igama habaari kartaan qofkii habaara ma cafiin because ma doonayo in la habaaro waxaan rabaa in la isugu kaayo soo duceeyo inuu ilaahay isku kaayo soo celiyo inuu ilaahay ii soo sakhiro inuu ilaahay xaqa soo fahansiiyo inuu ilaahay sida aan anigu u jecelahay jacaylkayga iyo sharafta aan u qabo jacaylka iyo sharafta iyo wanaagga iyo kalgacalka aan u hayo inuu ilaahay tuso ayaan ilaahay ka baryayaa one dayna way iman doontaa waxaa laga yaabaa anigoo berrito aan u baahan ama aan jeclayn ilaal inuu isu jeclaado waa wax dhici kara hadduu noolaado haddii aanu i jeclaan oo sidaa uu kala soconana dee nasiibkiisa waxa weeyaan anigu mar walba waan u ducaynayaa dasamaar waan aqaana khasaare iyo faa'iido labadaba because 100% qofka haddaad jeceshahay alla nimanka Soomaalidu xaasidsanaa waan inaan anigu waan sheegay idima sharaxni walaal qofka hadeer bay soo wacayo kuma sharaxni maxaad iga soo wici naag laga tagay maanahay naag la nacay baanahay mid kalena uma jooga ku qafilan qalbigaygu waa ruux kale ma fahanti hadalku uu ku dhaafin walaal qalbigaygu waa meel mana qaado ruux kale qorshahana kuma andirin qadir eebe mooye qofan adiga hayn abid qoysina wadaagnay qaadir haygu kaasimo walaalo heesta bal dhuuxaan u qaaday ma fahanti marka walaalo aniga jacaylka ninkayga jecelay waxa weeye xaq waa jacayl xaqa wallaahi wa billaahi wa tallaahi waa jacayl jihaad haddii uu jihaad jiro jacayl baan ku jihaadaya waa ku shahaadaya macamti haddii uu jacayl jiro jacayl baan jihaad ku gelaya sababta aniga waa nin jecelay iga kaxeeyo ma rabo I believe that in layga kaxaystay I believe that in laygu diray I believe that ninkayga in la sirxay wax lagu qabtayba because maxaa gurigiisa ka eriyay maxaa gurigiisa ka saaray maxaa gurigiisa ka eriyay dharkiisii baa yaala wallaahi inaana been idiin sheegayn dharkiisii oo uu xidhan jiray inaanu shay ka qaadan isagoo ordaya ayuu halkaa ka baxay dharkiisii uu xidhan jiray baa yaala sariirtaas aad arkayso waa taa $200 buu ka bixiyey soo maad garan daahiyada halkaa ku xidhan $300 baan ka bixiyey wallaahi jaakeedadiisa qaaligahaa ee adduunka ugu jeclaaba gurigayga yaala soo maad garan macnaha ninkayga aniga aamnood okay hilaal siciid cabdille caadi maaha hilaal siciid cabdille ma garanaysa aniga waa layga sii jeediyey waana la sii kala jeediyey sababtoo markaan la hadlo wuu i dagaali jiray anigoo si wanaagsan ula hadlaayo walaalo macaan tahay walaal maxaa kugu dhacay ayuu i dagaali jiray oo jiray maxaad ku hadlaysaa ma nabca uu rabaayo wala hadlaya marka waxa weeyaan qisadaas waa qiso cusub miskiin buu ahaa ninkan
ninkaagan weji uga qoranto hay soo wicin baa ku yidhi ima soo wici kartid baa kugu yidhi ima soo wici kartid bilfadlan hay soo wicin waa ku baryayaa soo aniga hay soo wicin walaalo jalas fooqal jalas ma haddaanad walaali dhegaysan karayno aniga qisadayda aanad dhegaysan karaynin in adeero macaano yugo cid kuu baahan baaba iska yar anigu ninba ma doonaya ninba ma rabee nin anigu addi kale adduunka ugu jecla anigu iga tegay nin kalena ma doonaya nabadgelyo walaalo waxaan hortayana baray waad aragtaa inaan anigu mooshin ku jiro inaan life ku jiro maxaad walaal ii soo wacaysa hay soo wicna ilaahaaga ka baq walaal anigu gabadh laga tegay maanu ninkeedii nacay oo laga cararay oo la tegay waxa aniga marka kale ma soo wacaanay igu saliday naadeer إنه هذا التلفون باي لما قرنا والله صاير لايف because dad bay wareerinayaan waxa xasidiin ay soo wacayaan aniga xasidnimada inta leey balka warar walaalayaal dadka ninka leen oo jecel bay ka wada yihiin haddaan imika aan idhaahdo like bas like alla nimanku xasidsana xasidiin weeyaan naag la soo furay bay saa u raadinayaan habla yaryar guursada bikrada ee wax guursada waayay naag